هلا والسلام عليكم أصحاب الجنة كيف كحيران أصحابتي سيتهين ساكو بردين ساكو ركشان أصحابتي هذه سلامية سلام قاليها وذي إذن سومرنا أصحابتي إيسو دوا هذا جنة عصب فالله سبسكرايب وصنو ده لايك أند شير كومنت كنا رأيدين وانجع الله هوس إيقو قرا أصحابتا ما أنتو حاليا وأركي maxaa markasta waxaa la yaabaa arkaa dhinaca Soomaalida horta social media marka maanta waxaa iga yaabiyay maxaa ma yaab ahaan ma aha laakiin qof hadis oh this person is crossing the line waliga ma aragto qof soo fiirinaysa waliga ma dhal qofkan xadkiisa soo gudbay ma isdhaahday wiil waxaan fiirsadaa wiilkan dayax bay dhabe إيدي يحضر نور شيء ويصير شبهان ياس ويسكوير إيكين ياس لكن أتفرست أنا قلت إنه حامود نيدي حبيت أبغى إنه محلها أي وش احتري كافتن وحان أي كتي حتى ده يحضرنوا شيء وكهلا شيء كذا ويل كان واتو دو في حتى أو تجربة ده كل من ما فهمت اللي ويل لكن more and more this story is getting worse محلها أي it even become serious مركب محلها فرحية غيري وتجوار ده يحضرنوا شيء حاسكي سلا ونحرسته فرحية مكي غيري وتج وحساب وزدقري انتاس أو فيديو وينايو ومحلها أي ساد وليها أي محلها حتى كفتمو حمق لي دي حاسكي سواد متأسقنا حاسكي سامو ديلاد ده كوش احتري سنة مفاد marka maxallaha ayay sheekadii waa kasoo gudubnay anaga every week new story aa galnaa Soomaali saacanahay soo sheekadii markaa kasoo gudubnay hada maxallaha ayay heer waxa taagan sheeko kaleetay iyo wax kaleetay uu sameeyay oo major aniga kasoo hadalsiisay ana awal dayax markuu isku ekeysiinayay waxyaalaha uu sameynayay walaa kama hadlaynin maxallaha because dad badan oo baydhabo kasoo baxo dhalinyarada oo muqsho ku nool oo famous ka u eg way soo wada baxeen we all know waa wada aragnay ma fahanti marka aniga fun and games ila ahayd hada la yaabay before ana maxaa ra'yigayga iyo saaw arko dayax bay dhabe isa saantiisa soo u socday inaan idin dhameenin waxaan rabaa quick story oo wadanka Mareykanka ka dhacday maxaa sanado ka hore ka dhacday ayaa rabaa inaan idiga sheekeeyo maadaama storyteller ahay هذا كورا واحد عدي قبر يوتيوبر very عانكا أو very famous ودقا أمريكانكا محلها أي يوتيوب كذا وحي كسوق بقبين جرتي my loves you know I love you guys are my family I love you أدي جرتي يوتيوبر إهد بس سيسا سودي سي محلها أي ويل دالين يرد كبيتها أو أيضا كحيران با هوي سولانور yahay wiilashan waaweyn waaye qolo isku xira every day waxay gabadha soo post gareyso ayuu fiirsadaaba one day ma dhaafto wuu fiirsadaa waa meelahay tagto concert marka way heestaa iyada concert ay qabqabtaa concertyadeeda dhan wuu gataa wuu tagaa message badan uu qoray back and forth abay waa ku xiiseeyaa you know cadaan isli adoo wiil Soomaali ama gabar Soomaali adoo u noqotay waaye maxallaha ay ahaysiisid u noqotay fan marka I'm your number one fan waa ku xiiseeyaa qof yahay oh thank you Instagram ka wada sheekaysteen ay ugu soo qortay sidaas u ahayeen ugu sheekeyn jirtay gabadha marka wiilkan wuxuu u haysataa qof oo normal ah oo haysataa oo fankeeda ah bas ninkan gabadhan wuxuu u maleeyaaba wuu jeclaaday wuxuu u maleeyaaba gabadhan ay la sheekaysanayso inuu girlfriendtiisu ay tahayba gabadhan waxay leedahay xiriir kale leedahay boyfriend kale leedahay nolosheeda gooni way u socotaaba ninkan laakiin noloshiisa wuxuu ka dhigay gabadhan inay xiriir leeyihiin ma fahanti بس معلمها كميت أيو وحو دمعي إن ومحلها لا شيكستو ودو قفيه you know شيكة جعل وكاني وين هذا والله على محكا قلدن أني وح فانكي أكو ملاي محلها يو weird محلها وإذا حينتا محلها يو creepy me out وإذا عبسيني ساعد هذا حركة أنا أجرتي هذا الذي أجرتي بس نينك هذا لما أجرتي وماشي أقدم بيسي wuu xanaaqay wuxuu sameeyay balaan uu samaystay
بس maalmaha ka mid waxay imaadeen magaaladiisa u dhow waxay ku sameynaysaa waxa la meet and greet dadka youtuberada caanka ah sameeyo dadka ku xiran waxay sameeyeen meel qabsadaan xaflad weyn ay qabsadaan waxay sameeyeen dad badan isku wacaan maxaa warqado u saxiixaan meet and greet waxa la sameeyeen dadka salaamaan bas meet and greet keeda mid weyn uu noqdo dad badan isku imaaday wiilka uu imaaday bas huuriyuu soo xirtay dharma madow wuu soo xirtay meet and greetku kasoo qayb galay markii dadka dhan aysa salaamtay stage saaran yahay say qaadeen maxaa lahay dadka dhan u sheekeeyeen markay imaaday ayada asaga markuu loo soo dhawaaday safka hore safka dambe uu joogo huuriyuu wataa bistoolonu ilaa wuu wataa gabadha marka hello you ay dhahaysaba adiga hebel ay dhahaysaba you adi qof yahow camal waay magaciisa ilaa ma taqaana moogta waa shicbe oo salaamayay marka gabar farxley ahayd saastay dhahaysay bistooladuu soo baxsaday bax uu ku tiriyey faktax wuu cararay guriguusuu tagay video dheer isku duubay asagana meeshuu isku dilay ma fahanti marka maxaa lahaya obsessionka qaarkood waa very very dangerous maxaa lahay aad iyo aadaan ugu xumahay heerkan in la soo gaartay dayax baydhabo waa garan dayax baydhabo inuu maxaa lahayay la soo gaartay sheekada halkan because at this stage waxa waaye very very maxaa lahay dangerous waaye at this stage waxa waaye psychosis waaye qofkan waxaa lahayay aad iyo aad wax kasta ka suurto aan maxaa lahayay also brand markay imaado qofka brand markay imaado qofka brandkiisa laguma soo xadgudbi karo wadamada Mareykanka anaga aan ku noolnahay magaciiga hadaan ani maanta meel ku furto dukaan ku furto ama magaciiga caadiga hadaan qofka magaciigu iga qaatay my brand ani aan leeyahay sameystay waa la qabsanaya waxa la brandka dhig magac kale aad sameyso ma fahanti he can't have more like two or anything oo la dhaho morla waxaa iskale dayax darnoosho dayax baydhabo waa qaldantahay qof dhan hungurigiisa iyo maxaa lahayay nolol maalmeedkiisa ayaad kusoo xadgudbaysaa walaalo sharciyada adduunka u yeelo dhan ma ahan qof in baraankiisa adna la samaysatid hadda maanta qof samaysan kara malaha Starbucks wadanka laga sameyn karo qof samaysan unless ay franchise ay ku siiyaan ku ogolaan magacooda waa laga gataa ma fahanti ma sameysan kartid maxaa lahay KFC unless franchise ala leedahay waa ku xiri karaa meel kasta dunida ka joogtid wayna ku diidi karaan brandkooda ma fahanti it's a brand name ka waxa iskale Morla dayax dal nuursha iskale anaga dhan aan ku ognahay maxaa lahay magacaas inuu ku furto ilaa ogolaado baydhabo aniga aad iyo aad qalad ila tahay dayax dal nuurshana duu asaga uu rabo wuu dacweyn karaa ninka magaciisa uu ka dhigan karaa ma fahanti xataa dayax baydhawada xataa ku dacweyn karaa laakiin dhib mala dayax baydhabo iska haysto laakiin Morla that's crossing a line in my opinion maxaa lahay that's branding kaaga copy of branding Allah dayaxo dayax dal noo shani jirnay ma fiirsado hadda taqaaniin bariis la share gareeya videoyadeeda he never watched me I don't know dayax dal noo that much but if you know him share ku dhaha because maxaa brand qof u leeyahay qof kale ma qaadan karo don't let someone ruin your branding because waxay noqonaysaa wax malaay xana adoo brand leh qof kale brandkaaga is same thing adi aa keento ka dawa furto halaasa kuwan line dayax baydhabo waxaan dhilaa walaal istaba qabo ilaaha qutalyoonka bixiyo ilaaha cuntada bixiyo ilaaha fahamka bixiyo marka ilaahay ka baro aadna inuu fahamka ka dhigo la imaa waxyaalaha maxaa lahayay oo horumarintaada iyo sifa ugu sii dhawaan fahamkaaga adoo qof kale aad xagin maxaa lahay ku dadaal inaad noqotid insha Allah وهذه سلامة يا أصحابتي أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك يا رسول الله